Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah dhismayaasha ugu caansan dunidani, isla markaana dalkiisa u soo jiiday dalxiisayaal tiro badan, taas oo keentay in dowladda dhismaha ka hesho sanad walba balaayiin dollar oo faa'iido ah. Haddaba dhismahani waa taawarka ama dhismaha dheer ee biraha ka samaysan ee magaalada caasimadda u ah Faransiiska ee Paris sumad u ah, isla markaana caan ku tahay. Haddaba maxaa ka taqaanaa taawarkani? Dhanka kalena maxaa kala socotaa taariikhda dheer oo taawarkan leeyahay? Yaana dhisay? Ka hor inta aanan gelin ka sheekaynta taawarkani, aan dib u milicsado taariikh nololeedka injineerka dhisay taawarkani, ka oo sidoo kale dhisay dhismayaal qurux badan oo maanta ku yaala gudaha qaaradda Yurub, isla markaana loo dalxiis tago. Dhanka kalena wuxuu ka qayb qaatay mashruucyadii lagu dhisay marin-biyoodyada Panama iyo Suez. Haddaba ninkani waxaa lagu magacaabaa Injineer Gustave Eiffel. Wuxuu dhashay 15 bishii 12aad sanadkii 1832, waxaana dhalay aabba ka mid ahaa saraakiisha ciidanka Faransiiska. Wuxuuna Gustave asigoo 23 sano jir ah sanadkii 1855 ka qalin jebiyey dugsi lagu barto farsamada gacanta. Kadibna sanadkii xigay wuxuu Gustave la shaqo bilaabay nin injineer ah oo ku xil dheeraa dhisidda dhismayaasha ka samaysan xadiidka ama biraha, ka oo lagu magacaabi jiray Charles Nivel. Gustave ayaa ka kororstay injineerkani khibrado badan oo dhanka dhismaha ka samaysan biraha. Dhanka kalena wuxuu Gustave muddo sannado ah ka shaqaynayay dhismo wada tareen oo uu ka dhisayay koonfurta dalkiisa Faransiiska. Sidoo kale wuxuu ka qayb qaatay intii u dhexaysay sanadihii 1864 ilaa 1866 daraasad lagu sameeyay dhulka uu maro kanaalka Suez ee dalka Masar, oo ah marin-biyood qaali ah oo ay dhistay dowladda Faransiiska. Wixii ka dambeeyay sanadkii 1866, Gustave wuxuu samaystay shirkad gaar ah oo ka shaqaysa dhanka dhismaha, wuxuuna mashruucyo badan oo lagu dhisay wadooyin tareen ka fuliyey dalalka Faransiiska, Spain, Romania iyo Boortaqiiska. Sidoo kale Gustave wuxuu ka qayb qaatay mashruucii dowladda Faransiiska ku fashilantay ee lagu dhisay marin-biyoodka Panama, taa oo keentay in Gustave sanadkii 1889 lagu soo daro liiska fadeexaddii Panama. Laakiin kolkii dambe waa laga saaray liiska kadib markii lagu waayey wax caddayn ah oo sugaya in Gustave ku lug lahaa lunsashada hantida qaran. Wixii intaa ka dambeeyeyna Gustave waxaa saameeyey fadeexaddii Panama, wuxuuna iska joojiyey fulinta mashruucyada waaweyn ee dhismaha, wuxuuna noloshiisa ku soo koobay aagga cilmi-baarista. Gustave ayaa geeriyooday bishii Sebtembar 27 sanadkii 1923, wuxuuna ku dhintay da'da 91 sano jir. Wuxuuna dalkiisa iyo dadkiisa ugu tagay baxthi handasi ah oo qiimo badan oo gadaashiis in badan laga faa'iiday. Sidoo kale wuxuu ka tagay dhismooyin taariikhi ah oo ummaddiisa maanta daqiiqad kasta ka kasbato xoolo badan. Waxaana ka mid ah waxyaabaha ama dhismayaasha soo jiidashada leh uu ka tagay Gustave taawarka caanka ah ee dhanka kalena sumad u ah magaalada caasimadda ee Paris, isla markaana lagu magacaabo taawarka Eiffel. Haddaba muxuu yahay taawarkani? Waxaan isku dayi doonaa in aan soo koobo taariikhda taawarkani dheer ee biraha ka samaysan ee lagu magacaabo Eiffel. Wuxuu ku yaalaa waqooyi galbeed ee magaalada Paris, aagga Champs-Élysées Paris, una dhow webiga Seine. Wuxuuna taawarkan dhererkiisu gaarayaa ilaa 324 mitir. Waxaan dhisidiisa la bilaabay 29 Janaayo sanadkii 1887, wuxuuna dhismihiisa socday 2 sano 2 bilood iyo 5 maalin. Waxaan dhismihiisa ka qayb qaatay 300 oo wastaad iyo 50 injineer. waxaana mashruuca dhismaha injineer guud ka ahaa Injineer Gustave Eiffel. waxaana 5 bilood ee ugu horreysay mashruuca lagu dhammaystiray aasaasiyaadka taawarka. wuxuuna taawarkani ku fadhiyaa bad gaaraya ilaa 15,625 mitir oo isku weer ah. wuxuuna ka kooban yahay 18,038 gobol oo biro ah iyo 2,500,000 oo bool. waxayna gaarayaan tirada sallaanada ama jaranjarooyinka taawarkani ilaa 1,665 sallaan. culayskiisuna wuxuu gaarayaa ilaa 10,000 oo tan. waxaana dadweynaha loo ogolaaday wixii ka dambeeyey 6 May sanadkii 1889. wuxuuna taawarkani ka mid noqday goobaha ugu muhiimsan caalamka ee loo dalxiis tago. waxaana taawarkan u dalxiis tagay intii u dhexaysay sanadihii 1889 ilaa 2005 tiro dalxiisyaal ah oo gaaraya 215 milyan oo ruux. si uu taawarkani markasta qurux badnaado, waxay dowladda Faransiiska u samaysaa 5 sanaba hal mar rinjiin guud. waxaana hawsha rinjiinta taawarkani qabta 25 ruux oo loo tababaray qurxinta iyo dhalaalaalinta taawarkani.